Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Ogaalka Dunida oo aad ka daawataan channelka Wanaag Media. Barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa taariikhda magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Istanbul waa magaalo taariikhi ah waxaana soo maray magaalo badan oo kala duwan sida Byzantium, Constantinople, Istana iyo Islamabul. Waa magaalada ugu weyn ee wadanka Turkiga waana magaalada sideedaad ee adduunka ugu weyn. Istanbul waxaa ku nool ku dhawaad 14 milyan oo qof. Magaalada Istanbul sida Badda Madow iyo Badda Marmara. Dhismayaasha taariikhiga ah ee magaalada Istanbul waxay ku yaalaan dhinaca Yurub, halka 3 meelood dadka degan Istanbul ay ku nool yihiin dhanka Aasiya. Magaaladan waxay caasimad u ahayd boqortooyooyin fara badan, waxaana ka mid ahaa boqortooyadii Romaaniya oo xukumaysay intii u dhaxaysay sanadii 330 ilaa iyo 395. Intaa kadib waxaa qabsatay boqortooyadii Byzantium oo xukumaysay intii u dhaxaysay sanadii 395 ilaa iyo sanadii 1204, waxaana xukunkii Byzantium kala wareegay boqortooyadii Laatiiniya oo iyadana halkaas ka talinaysay sanadii 1204 ilaa iyo 1261, waxaana mar labaad la wareegay boqortooyadii Byzantium oo haysatay ilaa iyo 1453. Wixii sanada ka dambeeyay xukunka waxaa la wareegay khilaafadii Islaamka ee Cuthmaaniyiinta oo iyagana halkaa uga talinayay khilaafadii Islaamka, waxayna Istanbul oo markaas loo oran jiray Islamabul xarun u ahayd khilaafada Cuthmaaniyiinta intii u dhaxaysay sanadii 1453 ilaa iyo 1922. Kadib markii ay burburtay khilaafadii Cuthmaaniyiinta sanadii 1924, waxaa dhalatay Turkiga cusub. Islamabulna waxaa loo bixiyay Istanbulta aan hadda naqaano. Istanbul maalinba maalin ka dambeysa way sii horumaraysaa, waxaana sanadii 2010 loo aqoonsaday magaalada thaqaafada ee qaaradda Yurub.